maalmaha dambe waxaad u soo badanayo dadka social media caanka ka ah oo aad yani inay shaqooyinka dhibsadaan culays fara badan iyo xaalado fara badan ay dareemayaan. Horta xanuunadan ruuxiga yani gaar ahaan isha ragga iyo dumarka, horta isha dumarka ayaa ugu badan. taasna waxaa keenaysa waxay tahay dumarka inta badan markay gaar ahaan social media ay soo fadhiisanayaan ama meelaha suuqa inta badan maryo jilicsan ay qaadanayaan ama jirkooda qayb ka mid ay soo muujinayaan. saa darteeda marka waxaa dhacayso in qofkii il ay ku dhacdo, isbedel uu ku dhaco, qofkii uu xanuunsado, madax xanuun badan uu yeesho, shaqadii uu gabo, dabeecadiisa ay xumaato, ay ku adkaato marka qarata qofka in macnaha yani fagaaraha social media inuu soo istaago, inuu yani barnaamijyaad inuu ka hadlato ay ku adkaanayso. tusaale waxaa dhacday hadda ka hor gabar baa nala keenay aad u xanuunsaneed. marka waalidka maysan noo sheegin marka waxay qabtay xanuun yani cudur kansar ah. markaan gabadhii baaritaan u sameynay aan wareysanay xaaladeeda, dhakhtar margeyseen warqadaheedii waxayna gabadhan waa fiican tahay daaweyn si oo xanuun jiniyay qabtaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال waxay la taagan Sheekh Cabdiraxmaan oo isagu ah kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed ku sugan xarunta Al-Ikhlaas isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyayba ka shaqeynayay la tacaalida dadka xanuunsan ee qaba xanuunada isha, jinka iyo xanuunada kale ee la xiriira. waxaa jira su'aal inta badan maadaama maanta barnaamij aan diyaarinaynay walaashay Fartuun ay barnaamijka diyaarinaysay xaruntan iyo waxqabadkeeda, anna bal waxaan jeclaystay in arrimaha qaarkood aan uga faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed. waxaa jira dad badan oo caan ah oo shaqooyinkii iyo howlihii ay wadeen ka fariista. waxaa inta badan la sheegaa dadkaas inay il ku dhacday. waxaan rabnaa marka arrimaha qaarkood inaan bal Sheekh Cabdiraxmaan Jeylaani ah wax ka weydiino farqiga u dhexeeya isha iyo sixirka. horta bal noo sharax. horta marka hore soo dhawaada. isha iyo sixirka horta waxaa aad u saameyn badan isha. sixirka wax jira waaye laakiin isha ayaa ka saameyn badan. maalmaha dambe waxaad u soo badanayo dadka social media caanka ka ah oo aad yani inay shaqooyinka dhibsadaan culays fara badan iyo xaalado fara badan ay dareemayaan. horta xanuunadan ruuxiga yani gaar ahaan isha ragga iyo dumarka, horta isha dumarka ayaa ugu badan. taasna waxaa keenaysa waxay tahay dumarka inta badan markay gaar ahaan social media ay soo fadhiisanayaan ama meelaha suuqa inta badan maryo jilicsan ay qaadanayaan ama jirkooda qayb ka mid ay soo muujinayaan. saa darteeda marka waxaa dhacayso in qofkii il ay ku dhacdo, isbedel uu ku dhaco, qofkii uu xanuunsado, madax xanuun badan uu yeesho, shaqadii uu gabo, dabeecadiisa ay xumaato, ay ku adkaato marka qarata qofka in macnaha yani fagaaraha social media inuu soo istaago, inuu yani barnaamijyaad inuu ka hadlato ay ku adkaanayso. ilan isha xaq waaye. ishana waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu dhibaatada badan ee bulshadani Soomaaliyeed aad u saameeyey. waayo dadka inta badan zamankan waxaad moodaa xasadkii aad inuu u batay. haddii qofka masalan wax uu wanaag ama uu la yimaado ama wax horumar ah, dadka inta badan maasha Allah ma dhahayaan. markaasaa waxaa dhacaysa qofka ilaa ku dhacdo uu shaqaysan waayo dabeecadiisa. yani isha inta badan qofka markay ku dhacdo waxaa ku dhacay tagyiir, isbedel, qofka inuu isbedelo, inuu shaqayn waayo, in yani maxal caajis badan inuu yani qofkii uu ku dhaco. marka isha iyo sixirka waxaa ka saameyn badan isha ayaaba ka saameyn badan. waa tahay marka qaabkee labadaba loola tacaali karaa marka? horta xanuunadan sixirka isha guud ahaan waxaa la yirahdaa xanuunada ruuxiga la yiraahdaa. waa xanuuno qarsoon oo inta badan qofka uu ka dareemayo gudaha, ma aan xanuun inta badan oo soo muuqanayo ama haddii qof dhakhtar la geeyo ama computer la saaro xanuun muuqanayo ma aha. waa xanuun qarsoon. qofka inuu isla tacaalo, asaga inuu isla tacaalo, in maxaa la dhahay uu raadiyo yani xaaladaha yani calaamadaha uu dareemayo, waxaan wixii sababay, kadib markuu ogaado qofka in mushkiladaas uu isla tacaalo ama uu ka caafimaado way u sahlanaanaysaa. waxaa muhiima qofka in xanuunkiisa wax badan uu ka ogaado. wuxuu ku ogaan karaa qofka inuu baaritaan ku sameeyo xaaladda uu dareemayo. markii calaamadii wixii soo ifbaxaan inuu qofka asaga isdabiibo, iscilaajiyo, qur-aanku akhriyo, gaar ahaan suuratul baqara inuu daa'imo. zamadahan dambe waxaad moodaa dadka inta badan Soomaalida waagi hore waxaa la yidhi Soomaalida yani boqolkiiba boqol dad qur-aanka aad u akhriya, xifdiga aad bay ugu badnaayeen. laakiin maalmaha dambe waxaa moodaa in qur-aankii laga tegey, akhriskii qur-aankii laga tegey, oo qofkii markii tabcaan xaaladiisa adkaata la yirahdo alele qofka uu xanuunsado cilaaj ha la geeyo ama isbitaal ha la geeyo la yirahdo. inta qofka uu caafimaadka qabana uusan dadaal badan uusan sameynin. taasaa marka waxaa keenaysa qofka markii xanuunka uu saameeyo in qofka xaalado badan iyo xanuun badan uu dareemo. waxaa muhiim qofka inuu asaga isdabiibo,
uuna aado xarun quraan saar talooyin la siiyo asna uu dadaal badan sameeyo insha Allah. waa tahay Sheekh Cabdiraxmaan waxaa tahay maamulka xarunta Al-Ikhlaas bukaanada idin keenahay ma waxay u badan yihiin xanuunada cuyuunta mise sixirka u badan yihiin maxay isugu jiraan horta anaga bukaanada oo yimaado markay yimaadaan waa wareysanaa horta saddex xanuun baa ka baarnaa oo inta badan wareysiga xanuunada ruuxiga xanuunada jismiga ku dhaco jisadka saameeyo xanuunada nafsiga oo qofka xaalad maadada waxaa jiro il ay baheenin laakiin xanuun qaab nafsi loo haayo intaba anaga waan daaweynaa qofka talooyinaan siinaa xaaladiisa waan dejinaa daawooyinaan siinaa qur-aanka waan ku akrinaa markuu noo yimaado qofka wareysi mar walba qofka maalin walba qofka waan wareysanaa marka xaaladiisa la ogaado wixii markaas xaaladii uu dareemaya talada ugu habboonaan siinaa ayna tahay qofka bukaanka in mar walba la daryeelo yani dhiiranaa in la siiyo mar walba qofka yani kalsooni la siiyo oo qofka oo niyadda loo dhiso oo qofka isagana way u fududaanaysaa marka inuu waxaan isla tacaalo ma ahan qofka inta badan qofka markuu xanuunkan ku dhaco Soomaalida inta badan qofkan waxa leeyahay qofkan wuu waashay qofkan saana dhacday in qofka hadal qaldan oo qofkaas dhuu u keenayo nafsi ahaan in uu xanuunsado ila qofka dileeyay maanta qofkan uu xanuunsan yahay qofkan saan way yani qof dhibki weyn inuu ku dhaco maskax ahaan qofka uu xanuunsado wayna dhacdaa inta badan isha markay qofka ku dhacdo yani xanuunka ruuxiga inuu isku bedelo qaab nafsi ah qofka maskaxiin uu xanuunsado dhiman uu noqdo marka inta badan dadkeena Soomaaliyeed bulshada aad ay u badantay xanuunadan inta badan heeyo waa xanuun ruuxi ah oo isku bedelay nafsi ahaan oo hada qofka leeyahay qofkii uu waashay waa tahay Sheekh Cabdiraxmaan misleedahay way soo yaraanayaan dadaalada maadaama xaruntan iyo xarumo kale ay jiraan oo cilaajkii uu socdo ma yaraanayaan dadka xanuunadan qaba mise waa ay soo kordhayaan horta dadaaladu way badan yihiin hadda magaalada Muqdisho qaasatan culum badan oo maasha Ilaahay qara siiyo oo waxa jiro oo xanuunadan in badan wax ka fahansan oo mar walba dadaal badan sameeyo oo yani in badan bulshada yani baraarujin u sameeyo oo idaacadaha soo fadhiisto TV-yada soo fadhiisto waxaad moodaa baraarujinta markay badatay in yani dadku wax badan ay soo ogaanayaan hadda anaga inta badan boqolkiiba boqol dadka noo imaada alxamdulillah Ilaahay faraj u fur Ilaahay waa caafiye mar wadada noo yimaado dadkaas markay caafimaad ayaga dadka sii keena naga inta badan social media ku yarnahay oo inta badan ma isticmaalo oo dadka marka midalan ay xanuunsan kala ma soo duubno waxyaabaha xarunta mamnuucka ay ka mid tahay qofka midalan markuu xanuunsanayo in camera laga duubo oo qofkii midalan xaaladiisa isbedel in la duubo istaas ay keenayso qofka niyad ahaan asana ay dhibaato u keenayso ana intaasba yani camerada iyo waxaas dhan xarunta waan ka mamnuucnay bukaanka waxaan sameynaa inta badan casharka tahliisha markaan diyaarino qofka waan cabsiinaa midalan biyo badan alla cabsiyaa qofka si uu u mantago laakiin anaga ma sameyno in qofka jirkiisa lagu seero waayo inta badan waxa noo imaanaya waa dumar waxa u shaqeynayna waa rag haddii marka dumarkii ayagoo xijaabood biyo badan lagu shubo waxaa imaanaya marka in cawradoodiiba ay soo muuqato anaga waxyaabaha xarunteena mamnuucka ay ka mid tahay ma sameyna intaas kaamirada iyo sidoo kale casharka midalan qofka in lagu seero waxaan sameynaa qofka casharka qaab waa cabsiina qofka yani inuu cabo qaybna waxaa sameynaa qofka inuu asaga qaato uu ku qabiisto uu isticmaalo marka qofka quraanka la saarayo oo qof ajnabi uu yahay in jirkeedii qaybo ka mid ah in la ceejiyo oo kale iyo mise quraan oo kaliya aad ku saartaan qofka anaga xarunteena gabdho badan ay joogo oo ka shaqeeyo oo caawileen dadka inta badan yani xarunteena qofka markuu yimaado waxa mar walba aan dhahnaa waxa mas'uul la socdo yani qofka midalan haddii dumar tahay dumar oo la socto qofka cilcilisa waa muhiim anagana waxaa jira gabdho badan oo meesha noo joogo oo noo shaqeeyo oo gabdhahaas caawiya waana taasna waa laga fiican yahay waxaasoo dhan waayo qofkan xanuunsanayo isagoo dhiban ku imaaday in midalan dhibaato loo sii geysto ama yani la ciijiyo ama in la jirjilo waa dhibaato yani qofka anaga waxaan sameynaa quraan kaliya ma qofka niyad ahaan qofka maskaxaan u daweynaa qofka inaan yani hadal warsan kula hadalno hadal jilicsan kula hadalno si qofka asaga nolol ahaan uu xaaladiisa u dirto nafsi ahaan uu xaaladiisa u dirto insha Allah biidhnillah albaari bal Sheekh Cabdiraxmaan waxaad ka warantaa maadaama muddo hadda hawshan aad wadaan ma jiraan wax caqabada ah oo aad tilmaami karto ama dhacdooyin la yaab leh oo idin soo maray inta hawshan aad wadeen horta caqabadaha inta badan way jiraan xarunta ama shaqada inta wadnay caqabadaha inta badan waxay nooga imaadaa dhanka bulshada gaar ahaan saali qof baa ku imaanayo oo xanuunsan anaga markaan wareysano saal waxaa dhacday hadda ka hor gabar baa nala keenay aad u xanuunsaneed
marka waalidka maysan noo sheegin marka waxay qabtay xanuun yani cudur kansar ah markaan gabadhii baaritaan u sameynay aan wareysanay xaaladeeda dhakhtar margeyseen warqadaheedii waxayna gabadhan waa fiican tahay daaweyn si oo xanuun jiniyay qabtaa anaga inta badan qofka nololkeena wuxuu asaga nadaha ma qaadana qofka marka anaga wareysano xaaladiisa ogaano haddii qofka maalan xanuuno ama waxaan ka darin dhakhtaraan u dirnaa xaaladiisi loo jikimo labadaba anaga waa samey ilaa qofkan qofa waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay xanuunka uu xanuunsan yahay uusan ahayn xanuun jinni ama il uusan ahayn laakiin xanuuno kale ay qabaan way dhacdaa inta badan bulshada markii xanuunada cilaajka markii dadka keenaya waxay dhahaan qofkan maxaa la dhahay qofkan jin baa haaya ama qofkan yani hala daweeyo keliya aysan sheegaynin inta badan qofkan xanuunka iyo xaaladii dhibka haysta aysan sheegaynin ama ay qarinayaan taasna caqabadaa ka imaanayso in qofkii hadhow daawada masalan qofka anaga daawo maba siina qofka qofaan xaaladiisa la ogaan ila qof markii xanuunkiisa iyo cudurkiisa aad ogaata daawo siin kartaa laakiin way dhacdaa marka qaar qofkii meelaha qaar waxaa dhacaysa qofkii in daawo lagu dardego taas waxaan leeyahay qofka waxaa muhiima xanuunsan in la ogaado xaaladiisa aan lagu dardegin daawooyinkan dhirta ah iyo daawooyin kulli in daawo dhan ama kiimika ha noqoto ama dheer ha noqoto in qofka markaa kadib in daawo la siin karo marka xanuunkiisa aad ogaato okay waan soo koobeynaa dad badan oo waxaa jira caqabadaha aadan sii wado waxaa ka mid ah caqabadaha labaad waxaa ka mid ah dadka inta badan markaan dhahno talooyin aan siino quraan isa saar bulshada soomaaliyeed inta badan markii la qofkan quraan hala saaro quraan hala isa saaro wuxuu leeyahay qofka markii quraan isa saar anima jini qabo waxaad moodaa dadka inay quraanka ka sii cararayaan oo quraanka qofkii quraanka la saaro kaliya loo aaminsan qofka jiniga qaba ama waxaa saameeyay kaliya in quraanka la saaro wadaan dad badan waxaa rabtaa xarunta markay yimaadaan baqana ay dhahay haddaan xarunta imaano wax baa naga soo raacayo si gooni ay rabnaa dhahay waxaas qorto waxba kama jiraan qofkan wixii ku jiro adiga kuma soo raaci karo haddeen qofkan waxa ku jiray qofkan raaci lahaayeen waxay cadow ku yihiin macalinka la dagaalamay quraanka saaray ayagay ataagayaan ayagay gali lahaayeen ma awoodo in qofkan qof walba culayska waxa ku jiro asagay ku jiraan laakiin ma awooda qofka in ka soo baxaan qof kale inay galaan taas bulshada Soomaaliyeed aad ay aaminsan waxay aaminsan yihiin hadii mesela meel quraan saar la yimaado qofkan wax ka soo raacayaan meesha quraanka khayrka iyo wanaagga waxba ka ma soo raacayaan ilaahay tala saaro niyadaadan khayr ka rajay ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr ka rajay insha Allah bogsoonaysa dadka xanuunsan ee isha qaba ee aan aaminsanayn inay tagaan xarumaha quraan saarka sida alqilaas oo kale fariinta u dirayso taas horta inta badan dadka inay aamini waayaan ama mesela ay ku adkaato horta xanuunka keenayo ilaa xanuunka qofka markuu saameeyo xasadka uu saameeyo qofka hadaa dhahdo wax xasada ku hayo ama xasada ku saameeyo ma ogolaanayo ma ogola qofka in xarun uu aado ama yani ilaa waxaana keena waxay diidayaan inay fashilmaan ama inay waxadlaan ama inay baxaan ilaa qofkan markii qofku waxaan saameeyaan horta waxa su'aal ma taqaan qofka markuu xanuunsado qofka wax baa ka dul hadlaya dadka qaar sidee u dhacday qofkii uu taagan in wax kale ay ka dul hadlaan sale hebel baa taagan hebelka inuu hadlo waxa keenaya wixii ta qofka waxaan markay saameeyaan ama ishay ku dhacdo ama xasadka uu saameeyo waxaan waxay ka qabsanayaan qalbiga sadarteeda qofku wuxuu noqonaa qof maqana jooga ayuu noqonayaa qofka ama asaga ma bahadlay balaayada ku jirtaa bahadlayso dadka ku diraysaa kelinimo qofka jeclaana bulshadu dhibsanaya daa'iman wuxuu jeclaysana qofka inuu kali ahaado banaanka iftiinka waxbarashada shaqada intaba qofka waxa walbo dan ugu jirto uu dhibsanayaa marka wax dadka dhamaan xanuunada dareemaya waxaan ula talinayaa in isdabiibaan xarumaha quraan saarada aadaan naftooda dabiibaan iscilaajiyaan aan ula dardaarmaya dhamaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ilaahay caafimaad nasiib insha Allah jazakallahu khairal jazaa xarunta iyo halka ay ku taalo alqilaas xarunta waxay ku taalaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Wadajir xaafadda Nisteex ay ku taalaa wixii faahfaahin insha Allah lambarada shashada kaga muuqda la soo xiriiri kartaan insha Allah aad mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan insha Allah waxaan idin rajeynayaa inaad ku guuleysataan in dad badan oo xanuunsan ay wada caafimaadaan walaalayaal anna waxaan ku biirinayaa talada uu idin soo jeediyay sheekha in dhageysiga quraanka iyo aqrinta suuratul baqara subixi 3 suuratul baqara haddaad aqriso oo aad dhameyso 7 subax amaba aad isku daydid inaad joogtaysid kaliya suuratul baqara aad joogtaysid ayaad isbedel dareemi kartaa marka aniga naftirkeyga dhowr mar is cilaajiyo ay jirtaa khayr Allah siiyo hala dadaal walaalayaal fadhiga ah laga kaco dad badan oo caana oo maanta fadhiyahay waxay la fadhiyaan waa il bini aadan oo soo gaartay
sidee marka ishaas looga hortegi karaa ustaad isha waxaa lagu hortagi karaa qofka inuu adkaarta daa'imo adkaaru sabaax walmasaa suuratul baqarana uu daa'imo qofka ilaahay baa xifdinaya wax soo galaya markaas ma lahan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaan jecelnahay al-ikhlaas iyo waxqabadkeeda intaas inaan bal sheekh cabdiraxmaan aan kusoo koobno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu